kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay aynu ka helaynay dalka Itoobiya oo sheegtay inay TPLF ka qabsatay wadda halbowle ah. Ciidamada Itoobiya ayaa sheegay inay dagaal qaraar oo ay TPLF la galeen ay ku qabsadeen waddada halbowlaha ah ee isku xirta Waldaya iyo Maqale. Warkan oo aan ka soo xignay telefishinka dawladda EPC ayaa sheegay inay ciidamada dawladda dagaal maalmihii u dambeeyay ay la galeen TPLF oo ka socday jiidii hore ee bariga dalkaasi inay ku qabsadeen waddadaasi. Sidaa oo kale ciidamada waxa ay sheegeen inay qabsadeen buuraha silsiladda ee Zoble iyo magaalooyinka ku hareeraysan sida Orjo, Fokiso iyo Boran. Fallaagada TPLF dhankooda waxay dagaal qaraar u galeen sidii ay waddada Waldaya iyo Maqale isku xirta ay u difaacan lahaayeen si aan looga qabsan, balse ugu dambeyntii dagaalka looga awoodroonaaday. Waddada ay ciidamada Itoobiya sheegeen inay TPLF ka qabsadeen ayay ku sheegeen inay go'doominayso ciidamada fallaagada TPLF ee gudaha deegaanka Axmaarada ka dagaalamaya saanadii ciidan iyo maleeshiyaadkii dhanka Maqale ugu imaan jirayna ay waayaan waddadii ay soo mari lahaayeen. Ciidamada waxay intaa ku dareen jidda hore ee Wuchale inay ku qabsadeen deegaanada Robit, Golbo, Warapapo iyo Milekoticha. Ciidamada Itoobiya oo maalmihii u dambeeyay guulo badan dagaalka ka soo hoyay waxa ay sheegeen inay hadda ku sii jeedaan deegaanka Marsa oo weli gacanta fallaagada TPLF ku jira. Afhayeenka TPLF Getachew Reda wuxuu bartiisa Facebook ku soo qoray inay ciidamadooda u ruqaansadeen dhanka magaalada Gashana, isagoo intaa ku daray inay u eg tahay inay ciidamadooda meel istaajin karta aysan jirin ilaa ay cadowga ku dhawaaqaan dagaalka inay joojiyaan. Isagoo fariintiisa ku soo afmeeray su'aal ah isku day inaad ogaato halka xiga ay ciidamadooda ku istaagi doonaan. Ciidamada dalka Itoobiya oo hogaaminayay Abiy Ahmed labadii toddobaad ee u dambeeyay dagaalkii ay TPLF la galeen waxa ay ka soo hoyeen guulo la taaban karo iyagoo magaalooyin badan oo ay TPLF qabsadeen dib ugu qabsaday. Dagaalka waqooyiga Itoobiya ka bilowday 4 November 2020 ayaa qarxay kadib markii ay dawladda Itoobiya sheegtay saldhigga ugu weyn ee ciidamada dalkaasi oo ay ku lahaayeen magaalada Maqale inay weerar ku qabsadeen ciidamada daacadda waa TPLF. Dagaalka xilligaas soo bilowday ayaa haatan 13 bilood jirsaday iyadoo ay weli muuqan wax xal ah oo laga gaaray colaadda dalkaasi ka aloosan. Midowga Afrika waxa uu isku dayayaa inuu dhinacyada halka isku hayo uu kala dabqaado, balse ay weli dadaaladooda miri dhal noqonin.